Marka ugu horeyn, magacaygu waa Tania. Waxaan ka shaqeeyaa shirkadda Cisco. Halkan umaanan imaanin inaan qof ka soo horjeesto. Dad badan gaar ahaan muslimiinta mar badan waxay idhahaan maadaama oo tahay Catholic waxaad geli doontaa jahannamo. Inagu waxaan kuugu yeeraynaa islaamnimo si aad u gasho jannada. Anigu waxaan iska soo qaaday Catholic diinteeda ku toosan. Mar walba waxaan isku dayaa inaan ahaado Catholic diinteeda ku toosan. dambina uma galo si kas ma waxay tahay inaan naar geli maadaama aan ahay Catholic. Haddaan islaamuna inaan janno geli doono. walaashu waxay sheegtay in badan oo ka mid ah asxaabteeda muslimiinta ahi inay ku dhahan maadaama aad tahay Catholic waxaad geli doontaa jahannamo. ma sax baa inay sababtaas u geli doonto jahannamo? walaashayda aniga ra'yigayga haddii aad tahay gabar Kristaan ah oo raacsan tacliimta Ciise calayhi salaam si dhammaystiran insha Allah waxaad geli doontaa jannada. laakiin haddii aad dhab ahaan raacayso tacliimta dhabta ah ee Masiix Ciise calayhi salaam, Nabi Ciise wuxuu yiri xaq ayaad garanaysaan, xaq ayaa idin xoreynaya. laakiin anaga hadda ma ogi waxaad raacsan tahay. ma kaniisadda ayaa raacsan tahay mise Nabi Ciise calayhi salaam? haddii aad raacsan tahay kaniisadda, fursadaad ku geli doonto jahannamo waa mid aad u weyn. balse haddii aad raacsan tahay Masiix Ciise calayhi salaam, insha Allah waxaad geli doontaa jannada. hadda haddii aad akhriso Bible-ka hadallada qaar ee khuseeya Masiix Ciise calayhi salaam, ma ogi intay tiril ay yihiin. dhammaan hadalladaas waxay ku qoran yihiin xarfo guduudan. waxay ku qoran yihiin qoraallo guduud ah. walaashay, ma waxaad rumaysan tahay in Masiix Ciise calayhi salaam yahay Ilaah? Aniga shaki ayaa igu furan arrintaas. anigu waxaan ku weydiinayaa maya ama haa. waa Ilaah shaki ku jiro? Maya, ma aha Ilaah shaki ku jiro, balse dooni maayo inaan ka jawaabo waxaanan garanaynin. maya walaashay, waxaan ku weydiinayaa waxaad rumaysan tahay. ma ahan waxaad aqoonta u leedahay. Aniga waxaan rumaysanahay inuu yahay Ilaah. aniga kuma weydiinayo waxaad garanayso, maxaa yeelay waxaad adkaanaysaa in la saxo. walaashay, iida aan kuu sheegay, islaamku waa diinta keliya, kiristaanka kama hadlayno, oo ka yeelay dadka aaminsan inay rumeeyaan Masiix Ciise calayhi salaam. muslimka islaamkiisu ma dhammaystirno haddii uusan rumaysanin Masiix Ciise calayhi salaam. waxaan rumaysanahay inuu yahay rasuulka go'aanka adag. waxaan rumaysanahay dhalashadiisa mucjisada ah aabala'aan iyo inuu yahay Masiix oo loo turjumo Christ. waxaan rumaysanahay inuu caafin jiray dadka indhaha la iyo kuwa baraska ku dhacayba idinka alle. muslimka iyo kiristanka hal meel ay wada socdaan ilaa hadda, balse midkood ay isweydiin karaa halkii lagu kala duwan yahay. kala duwanaanshuhu walaashay waa in badana kiristanku haddaysan dhammaantoodba ahayn. waxay rumaysan yihiin in Ciise calayhi salaam yahay Ilaah. waxay rumaysan yihiin inuu ilaahnimo sheegtay. dhab ahaantii haddaad akhriso Bible-ka lama helayo erey cad, lama helayo hal erey oo keliya oo cad, wax mugdi ah ku jirin. waa Bible-ka dhammaan oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay nafsad ahaantiisa aniga ayaa ah Ilaah ee caabuda. walaashay, haddaad awooddo inaad ii tilmaamto hal jumlo oo keliya, waa hal jumlo oo keliya meel kasta oo ka mid ahi Bible-ka oo Ciise calayhi salaam ku leeyahay Ilaah ayaan ahay iyo caabuda, maanta waxaan diyaar u ahay inaan noqdo Kristaan. haddaad akhriso Bible-ka Aniga kama hadlayo aqbalitaankaaga. maya, waan u imaanaya hadalkaaga. aniga ayaa kuu dhammaystiraya. Ayaag waad dhammaystiri kartaa. jawaabta barkeeda ayaan ku siiyey. waxaan kuu sheegay haddaad tahay kiristaanad dhab ah waxaad geli doontaa jannada. adigu ma garanaysa kiristaantiga dhabta ah. aniga ayaa macluumaad kaa siinaya Kristaan. haddaad akhriso Bible-ka John chapter 14 faqrada 28, Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay Ilaahayga aniga uu iga weyn yahay. John chapter 10 faqrada 29, Rabbigayga dhammaan ka weyn yahay. Matthew chapter 20 faqrada 28, aniga ruuxda Alle ayaan shayaadiinta ku saaraya. Gospel of Luke chapter 1 faqrada 20, faraha Alle ayaa shayaadiinta ku saaraya. Gospel of John chapter 5 faqrada 30, anigana sud ahaanteed inaan wax sameeyo ma awoodo. sida aan maqlayaan ka diin dhiganaya, maxaa yeelay ma dalbayo doonisteeda, waxaan dalbayaa doonista Allah soo diray. qof walba oo dhahaya aniga ma dalbayo doonisteeda, balse waxaan dalbayaa doonista Allah soo diray waa muslim. sidaa darteed Masiix Ciise calayhi salaam wuxuu qari doonista Allah. isagu waa muslim, waligii ma dhihin Ilaah yaan ahay. si cad yaa loogu sheegay Gospel of John chapter 14 faqrada 24. Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay hadalka aad maqlaysan aniga iskama leeyi, balse waxaa iska leh Allah soo diray. sidoo kale waxaa lagu sheegay Book of Acts chapter 2 faqrada 22, raggiina reer Israa'iilow dhageysta hadalladan. Yasuucu Naasiri waa in xagga Alle idinkaga cadeeyay cajaa'ib iyo calaamado.
ilaahay ayaa gacantiina ku sameeyay dhaxdiina awoodahaas cajaa'ibtaas iyo calaamadahaas waa sida idinkuba ogtihiin haddaba masiix waa nin xagga alle idinkaga cadeeyay awoodo cajaa'ib iyo calaamado alle gacantiisa uu ku sameeyay dhaxbartamihiina haddaba bible-ka ayaan ka ogaanaynaa in ciise calayhi salaam yahay mid ka mid ah rasuusha lagu galgacayl badan yahay xagga alle haddii aad barbardhig ku samayso waxa uu ku sheegay ciise calayhi salaam bible-ka shalay waxaan sheegay haddaan nahay muslimiinta caalamka ciise calayhi salaam wax ka badan kiristaanka anaga ayaa raacsan marka laga hadlo arrinta ku jirta gospel of Luke maalinta 8aad ayaa nabi ciise calayhi salaam la dhaahiriyay inaga haddaan muslimiin nahay maalin walba waan is dhaahirnaa laakiin badana kiristaanka sidaa ma aha masiix ciise calayhi salaam wuxuu ku leeyahay gospel of Matthew chapter 17 ha u maleynina inaan u yimid inaan bariyo dhammaan qariwadayaasha iyo ambiyada balse waxaan u yimid si aan wax u dhameystiro hadalkaygii hore aan ku sheegay sifir tafniya chapter 14 faqrada 8aad book of Ashciya chapter 65 faqrada 2 ilaa 5 sifir Lawi chapter 11 faqrada 7 ilaa 8 inuu yahay hilibka doofaarka xaraan haddaan muslimiin nahay hilibka doofaarka ma cunno laakiin badana kiristaanku way cunaan waxa lagu sheegay Ephesians chapter 5 faqrada 18 book of Proverbs chapter 20 faqrada 1 عابينا قمردا مسلمين هدانا ما عبنو لكن بدنا كريستان كوي عبا هدبا هدي معناها كريستان كيهي راعدة تعاليم عيسى عليه السلام مسلمين تأيا وكراعد بدن كريستان كان نفسدهان تودا هدبا هدي أد نقطة جبر كريستان أو ربعة أو راعد عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام حكوليه Gospel of John chapter الحتوانات فقرة الدوات بس أنيجا أيا حق إذن شيء يا وحيدين خير بدن إن أنتجو محايل هدي أن أنتجين كيل شرفة إذن مئمانيو بس هدي أنتجو وعلى إذن صدريا سيدو كلا Gospel of John chapter الحتوانات فقرة 8 إلى 14 وحيدين هيا أريم فربضن سندين كوجو شيء لكن ما أودن إن أدل قاتان بس كاس مركو يمادو والروح دي ربطة وحيدين كوجو هنون دونا ضمان حقه محايلي نفس دي سكما هذي دونو بس وحو مقلا إذن كل هذي دونا وحيدين شيء دونا أريم إيمان دونا كاسو شرف دونا محايلي وحي عن شيء ويدين شيء دونا هذا عيسى عليه السلام وحوري أشاقي ما شاء نبيذ قدام بي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي أسد أبا أرميسو عيسى عليه السلام وهذا رمينا سنة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله واحد قلت دونتا جنة ولا شيء وحنفليا إن سؤال هذا كجوابي